السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ah oo inagu tala galnay inaynu ku soo bandhigno xisaabaadka dhibane Maxamed Soomaali isla markaasina aan kugu soo gudbino warbixinada ama informationada ku saabsan caafimaadka Maxamed Soomaali. maantay waxa Maxamed lagu sameeyay qaliinkii koowaad waxaana maqaar laga soo qaaday qaybo kamid ah lugtiisa waxaana la saaray meesha boogta ah ama nabarka uu ku yaalay. الحمد لله ولغو غوليستay qaliinkii koowaad balse waxa jira qarashaad fara badan oo ay soo dalaceen isbitaalka. daawadayaal walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan dhawaan idin soo bandhigi doonaa rasiidadii muddadii koobneed oo uu ku jiray Maxamed isbitaalka Tawakal. lacagaha la soo dalacay waa lacaga marka aad maqashaan maskaxdiina diidayso because of isbitaalku waa isbitaal private ah si gooni ah ayuu kiiska Maxamedna ugu kuurgalay si uu wax uga qabto muddo kooban oo aad u yar. Maxamed caawinaadiina ayuu mar walba daawadayaal ama walaalayaal u baahan yahay waxa uuna isbitaalka u jiifaa ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiyaan. Maxamed waa wiil yar oo aad ugu dhibaatooday caafimaadkiisa muddo ka badan 4 sanana ma uusan helin raaxada nolosha. waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal inaad soo caawisaan oo aad soo gargaartaan dhibane Maxamed Soomaali. qaliin labaad ayaa u dhiman oo lafta ayaa la jebin doonaa hawshiisana waa faan oo la faray kama qodna. lacagaha la soo dalacay iyo lacagaha iminka ay walaalaha Soomaaliyeed ku soo sadaqaysteenna waxa u dhaxaysa farqi weyn inkastoo lacaga aynu hayno laakiin ma kaafinayso ama kuma filna adeega loo baahan yahay in Maxamed Soomaali loo qabto. gacantiina ayuu Maxamed Soomaali ku jiraa caafimaadkiisana waxa ay ku xiran tahay lacagaha adika soo dirtaan. fadlan soo caawiya Maxamed Soomaali mar walba waxaan u goob joognahay ama aan idin soo bandhigi doonaa lacag walba oo aad soo dirtaan inagoo cadeyn doona meelaha aad ka soo dirteen iyo qaababka u soo dirtaan. fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad Maxamed Soomaali soo caawisaan. waa the last game ama waa the last chance oo Maxamed Soomaali caafimaadkiisa uu ku istaagi lahaa. waxaan idinka codsanaynaa mar kale inaad Maxamed Soomaali aad soo caawisaan isla markaasina aad soo garab istaagtaan. dhakhtarku waxa uu inoo sheegay in muddo kooban lagu sameyn doono qaliino kala duwan si caafimaadkiisa uu mar kale dib ugu soo laabto isla markaasina uu noloshiisa caadiga ahayd oo Maxamed ku soo laabto. fadlan waxaan idinka codsanaynaa in Aabe Axmed Jeelaani oo ila fadhiya aad la soo xiriirtaan lambaradiisa iyo emailadiisa si Maxamed Soomaali uu idinkaga warbixiyo. sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal oo si naxariis leh oo alla ka cabsi leh oo bini aadanimo ku jirto ayaan idinkaga codsanaynaa inaad soo caawisaan oo aad soo garab istaagtaan walaalkiin Maxamed Soomaali oo sidaad wada ogtihiin dhibaatooyin kala duwan soo maray intii uu noolaa ama muddadii koobneed uu adduunka u joogay. fadlan soo caawiya waana ku mahadsantihiin walaalaha soo caawiyay sida mar walba ay u garab taagan yihiin dhibane Maxamed Soomaali. waxaan jecelahay inaan idin soo gudbiyo hadduu alla idmo walaalihii lacagaha ku soo diray xawaaladaha kala duwan ee Malaysia muddadii shalay iyo maanta. waa shalay iyo maanta walaalihii lacagaha soo diray waxa waay waqtiguna aad ayuu inoogu yar yahay oo aabaha ayaa ku qoran inuu la soo jiifto Maxamed si macnaa caafimaadkiisa uu mar walba uu goobjoog uga noqdo. hadduu alla idmo waxaan idin soo gudbinayaa magacyada iyo waliba qaababka ay kala yihiin.
waxaan ka hormarayaa xawaalada dahabshiil waxaa lacagtan soo dhigay cabdirashiid maxamuud xuseen waa cabdirashiid maxamuud xuseen waxa uu ku nool yahay Norway wuxuu maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 qofka kale oo ku soo sadaqaystay maxamed deeqdan waa Sahra Gacal waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $300 waxa ayna ku nooshahay Canada walaalka kale ee maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay lacagtan waa Canab Daahir Gelle waxa ay ku nooshahay Saudi Arabia waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale ee ku soo sadaqaystay maxamed Soomaali deeqdan waa Xamdi Awil Cali waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $150 waxa ayna ku nooshahay Denmark walaalka kale ee maxamed Soomaali lacagtan ku soo sadaqaystay waa Abshiro Cabdiraxmaan Caynab waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 waxa ayna ku nooshahay Finland waa Abshiro Cabdiraxmaan Caynab $100 ayay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay waxa ayna ku nooshahay Finland walaalahan xawaalada dahabshiil lacagta soo diray ee maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay maxaad ugu ducay lahayd جزاك الله وحان لهي والله إلهي هدين بركيو إلهي أجري حسنات الله هدين كسيو إلهي إذا كان سداد نو فرحسين سكدران الله هدين كفرحيو قفل بمراد أولاه وحان إلهي وبرياناني ويلكي مراد كودا إنو إلهي تام وغريقو قفل بقول ولا سنو ولا إلهي والكقادو إنو إلهي أود كين بار نوديقو إنو إلهي أود كين نوديستو إلهي إنو نغريو كويدال كودي دين تودي داد كودا أنفعي إلهي نهانو بركيو جزاك الله خير والله وحادين الله مر والبو إمر walba aan ku buurnayaa inay wiilkeedin soo duceynayno ilaahay qof walba oo maanta muraad uu sugay inuu ilaahay muraadkiisa hal musaal ilaahay uu ku siiyo biidnillaahi kariim insha Allah waana xaaladiisna waan la socodsiin doonaa duwaalin waa tahay allaha idin aqbalo ducada Aaba Axmed Jeelaani daawadayaal walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad soo garab istaagtaan dhibana maxamed Soomaali caafimaadkiisa meel dhex ayuu marayaa waxaana maanta lagu sameeyay qaliinkii koowaad waxaana u dhiman qaliinkii kale oo lafta lagu toosi lahaa maxamed dhaqaalaha iminkaynu aruurinay ma ahan mid ku filan ama kabi kara caafimaadkiisa guud ahaan maxamed wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan dhaqaatiirtu waynu isku daynay laakiin ilaa hadda qaliinkii koowaad ay noo sheegeen oo ku bixi doonta in ka badan 40,000 oo ringid maxamed maalin walba waxaa lagu shubaa dhiig oo lacag kale ah sidoo kale maxamed waxa uu helaa daryeel gooni ah oo ka duwan kuwa kale ee helaan beeshanada ku jira isbitaalka maxamed caafimaadkiisa iminka wuu ka soo reenayaa waxa uuna ku jiraa isbitaalka Tawakal isbitaalka waxa uu jiifaa walaalaha Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay ee ku nool caalamka fadlan waxaan idin ka codsanaynaa inaad soo garab istaagtaan maxamed Soomaali waxaan sidoo kale idin soo bandhigi doonaa rasiidyada ama warqadaha lacagaha ee boonada ay nasiyaan isbitaalka si aad u ogaataan lacagaha mar walba aynu bixinno iyo waxa aan haysano si markaas adikuna aad noo garab istaagtaan mar kale waxaan idin ka codsanaynaa inaad soo caawisaan dhibana maxamed Soomaali fadlan soo caawiya waa markii ugu dambeysay sida aan filayo oo uu helo gargaarkan yuusan ka go'in noloshu waa mid u baahan yeelo waxuna maxamed ka mid yahay walaalaha mustaqbalka insha Allah taala abaalkiina idin gudi doona haddaad tihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo laabanayaa walaalaha lacagaha soo dhigay xawaaladaha kala duwan ee Malaysia xawaalada Taaj waxaa lacagtan ku soo sadaqaystay maxamed Soomaali ee soo dhigay waa Xaawo Maxamed Nuur waxay ku nooshahay Sacuudiga waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $25 qofka kale ee xawaalada Taaj lacagaha soo dhigay waa Rawdo Nuur waxay maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 waxayna ku nooshahay Switzerland
qofka kale ee xawaalada taaj lacagaha soo dhigay waa Esther Muuse Xasan waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 waxayna ku nooshahay Soomaaliya xawaalada Amaana walaasha lacagta soo dirtay waa Maryan Abshir Saciid waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 waxayna ku nooshahay Ingiriiska xawaalada Mustaqbal walaalka lacagta soo dhigay waa Khalid Maxamed Cabdullaahi waxa uu ku nool yahay Jarmalka wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 Xaawo Ciise waxa ay ku nooshahay Holland waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale xiga waxa uu noqonayaa Shukri Nuur Axmed waxay ku nooshahay Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale xiga waa Maxamed oo ku nool Riyaad Sacuudiga maxamed magaciisa ma dhamaystirna wuxuu ku nool yahay Riyaad Sacuudiga waxa uuna soo diray $100 wuxuuna ku soo diray xawaalada Iftin Express walaalahan Soomaaliyeed ee lacagaha soo diray maxaad ugu ducay lahayd jazakallahu khayr walaalay waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo sidaad noo farxiseen si ka daran Allah idinka farxiyo qof walba muraad uu leeyahay Ilaahay waxaan ugu bareenaa inuu Ilaahay muraadkooda u sahlo qof walba oo maartay maanta wiilkay Maxamed Soomaali soo garab istaagtay ama uu oosay ama u duceysay mar walba waxaan leeyahay jazakallahu khayr Allah idin barakeeyo Ilaahay ubadka Allah noo deeyo Ilaahay waxaan ka bareenaa ubadkeena Allah noo dhigo kuwiina anfacay oo na duugay oo noo walaaliyay oo mar walba yaani dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda anfaco Ilaahay waxaan ka bareenaa maartay qof walba oo bukaan xanuunsan inuu Ilaahay caafimaad cimriirisiyo intii maartay muraad leen waxaan Ilaahay ugu bareenaa wiilkay muraadkooda inuu Ilaahay taam ugu dhigo qof walba uu jecel yahay wanaagan Ilaahay waxaan leenahay wanaagis inuu sii badiyo jazakallahu khayr waa in soo duceynaa mar walba insha Allah waa tahay Allah u aqbalo ducada Aaba Axmed Jeelaani walaalaha Soomaaliyeed ee lacagaha ku soo sadaqaystay dibane Maxamed Soomaali waxaan mar kale in ka codsanaynaa daawadayaal inaad Maxamed Soomaali soo caawisaan oo soo garab istaagtaan oo hal mar aad ka saartaan isbitaalka hadduu alla idmo fadlan soo caawiya ha ka hagrina waxba waa wiilkiinoo kale waa walaalkiinoo kale waa dhibano Soomaaliyeed oo maanta gacantiina u baahan dhowr mar oo kala duwana dhibaatooyin kala duwan soo maray waxaan jecelnahay insha Allah tacaala inaad naga aqbali doontaan codsigeena oo mar kale aan u kici doono dhibane Maxamed Soomaali qofka kale oo lacagaha Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay waa Samsam Muuse Cilmi waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $150 waxa ayna ku nooshahay Denmark qofka kale oo xiga waxa uu noqonayaa Muno Cabdiraxmaan Axmed waxa ay ku nooshahay Uganda Kampala waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale oo xiga waa Xasan Bulxan Cali wuxuu ku nool yahay Melbourne Australia wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $275 walaalaha Soomaaliyeed ee lacagaha Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay maxaad ugu duceeyay adigoo soo koobaya jazakallahu khayr waxaan leeyahay Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay maartidigan sidaad noo farxisan Allah idinka farxiyo qof walba muraad uu leeyahay Ilaahay waxaan ugu bareenaa inuu Ilaahay muraadkiisa taam ugu dhigo inuu Ilaahay idin sahlo insha Allah kuleed waxaad sidaad noo farxiseen idinkan Ilaahay idinka farxin doona haduu Ilaahay raali ka noqdo mar walba noo duceeyna idin daba taagan wiilkiin inuu idin soo duceeyay idinkan ugu soo duceeyay inuu Ilaahay caafimaadkiisa taam ugu dhigo insha Allah waan isku warahaynaa duwaleedna وهجاك داوديال انت سينو كسو جبنجبيننا قيبتي كلا او انو كسو بندقين حسابات كاد كسو صدقيستين محمد صومالي اسلا مركاسين انو كسو قدبينينا انفورميشن كجود محمد صومالي مركله waxaan idin ka codsanaynaa daawadayaal inaynu u istaagno sidii aan maxamed Soomaali mar aan uga soo bixin isbitaalka sababaha aan kugu soo celcelinayna waxa weeye lacagaha iminka maxamed Soomaali ku taagan oo isbitaalka naga rabo iyo kuwa uu soo dalaci doono iyo qalinkiisa kale lacagaha naga rabo iyo waxa aan hadahayno waxa u dhaxaysa farqi kala duwan waxaan idin ka codsanaynaa in aynu maxamed u istaagno oo aan aad u soo caawino waxaan idin ka balan qaadayaa
rasiid walba ama lacag walba oo aan bixino rasiidkeeda inaan idiin soo bandhigi doono si aad u aragtaan lacagaha halka ay ku baxeen iyo waxa aan haysano si aad markaas aad u ogaataan waxa naga dhiman. waxaan idinka codsanaynaa inaynu maxamed mar uun aan caawino. waa fursaddii ugu dambeysay ee walaalaha Soomaaliyeed ay maxamed ku caawinayaan. maxamed waa wiil yar oo 10 jir ah oo nolosha raaxada nolosha aad ay ugu adag tahay oo muddo 4 sano ka badan aanan helin raaxada nolosha. wuxuu u baahan yahay caawinaadiina, wuxuu u baahan yahay kaalmadiina. waxaa si islaamnimo leh oo bini'aadanimo ku jirto oo alla ka cabsi uu ku jiro idinkaga codsanaynaa inaad soo garab istaagtaan oo mar uun isbitaalka ka soo saartaan dhibane maxamed Soomaali. maxamed maalin walba waxaa lagu shubaa dhiig, maalin walba wuxuu maraa dhaymo, maalin walba waxaa ku socda howlo kala duwan. isbitaalka caafimaadkiisa aad ayuu ula tacaalayaa si mar uun lugihiisa ugu istaagi lahaa maxamed Soomaali. balanteenu waa inaynu maxamed Soomaali soo caawino oo aan garab istaagno. lacagihii walaalaha Soomaaliyeed ay maanta kusoo sadaqaysteen dhibane maxamed Soomaali shalay iyo maanta aan iraahdee intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa. markii ringid ahaan loo bedelo lacagtii waa intaan ayay noqotay. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo hadduu alla idmo Aabe Axmed Jeelaani si uu asaguna inoogu sheego in lacagihii aan idiin sheegay inuu asagu helay oo gacantiisa ku hayo. haye Axmed. jasaakallah khayr. lacagihii waa kana waa haystaa. ilaahay maartay idinkana ajri xasanaad allah idinka siiyo. ilaahay maartay idinkana qof wal muraad ilaahay muraadkiisa allah u sahlo insha allah. waxaan aad iyo aad u faraxsanahay sidaad maartay soo caawiseen iyo sidaan hadeertan idin sugayo. maantana maxamed wuxuu ugu jiraa isbitaalka walaalahayga Soomaali weyn. ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo. intii dhiman waxaan filayaa inay garabkayga istaagi doonaan hadduu ilaahay raal ka noqdo. jasaakallah khayr. waa idin soo duceynaynaa insha allah biidnillaahi kariim. waa tahay allaha idin aqbalo ducada dhibane axmed Soomaali maxamed Soomaali ka timid iyo Aabe Axmed Jeelaani ducadiisa intuba allaha idin aqbalo. daawadayaal intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa. intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa aniga iyo Aabe Axmed Jeelaani oo idinkaga tagayna sidaas nabadgelyo.